faahfaahinno dheeraada ayaa laga helayaa dagaal ciidamo ka watirsan dowladda federaalka ku dhex maray xaafadda Tarabuunka degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Waryaheena Ibraahim Bashka ayaa ka waramaya. inta la xaqiijiyay shan ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyootay tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta ka dhacaya isgooska Tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. dagaalkan waxa uu dhacay ciidamo ka watirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxaana la sheegay inuu abaabulnaayeen qaab beeleed. waxaana ciidankan dagaalkoodu ka dambeeyay kadib markii la isku qabtay dul ku yaala degmada Daynil waa degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana sidaas sababay dagaal dhexmaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dhawaqa rasaas aad u xoogan ayaa laga maqlay isgooska Tarabuunka iyo sidoo kale xaafado ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana dagaalkaas sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac. dadka deegaanka ayaa dalsan waxay u sheegeen inay geeriyoodeen 5 qof oo dhammaantood ahaa dad shacab ah waxaana sidoo kale la sheegay tiro intaa ka badan inay ku dhaawacmeen dagaalkii maanta ka dhacay xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir. weli ma jirto wax war ah oo ka soo baxay taliska ciidanka ee ku aadan dagaalka maanta ka dhacay deegaanka waa dagaalka maanta ka dhacay xaafadda Tarabuunka ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana sidoo kale jira khasaare kala duwan oo dagaalkaas ka dhashay. maalmihii u dambeeyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa isku horfadhiyay isgooska Tarabuunka ee magaalada Muqdisho iyadoona shalay sidan oo kale ciidanku ay uga dagaalameen isgooskaasi waxaana ugu dambeyntii maanta kala dhaxgalay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska gaar ahaan booliiska ka howlgala degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in ugu dambeyntii dagaalku ciidanku ay joojiyeen xaaladuna ay tahay mid degan. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu maanta sagootiyay dadka qaba dhaawacyada culus ee wax ku noqday qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho kuwaas oo loo qaadayay dalka Turkiga. waryaheena Xuseen Washington ayaa ka waramaya. in ka badan 14 qof oo kamid ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii shalay ka dhacay isgooska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa laga qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde Muqdisho iyadoona ay ka qaaday diyaaradda ka timid dalka Turkiga. 14kan oo ay ku jireen laba muwaadin oo u dhashay dalka Turkiga ayaa laga qaaday garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho waxaana garoonka ku sugnaa xilliga ay diyaaradda ka ciisay mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ugu horeeyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madax kala duwan oo ka tirsan dowladda. sidoo kale waxaa kamid ahaa xubnaha ku sugnaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde Muqdisho xilliga dhaawacyadan laga qaaday garoonka guddiga gurmadka degdega ah ee dowladda u xil saartay waxaana garoonka ka soo gootiyay madaxdaas iyadoona ay diyaaraddu ay qaaday in ka badan 14 qof oo ay ku jiraan laba ruux oo u dhashay dalka Turkiga kuwaas oo shalay ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgooska Ex Control Afgooye Muqdisho. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka hadlay dadkan maanta loo qaaday dalka Turkiga isla markaana halkaas xaalada caafimaad loogu fidin doono. safiirka dalka Turkiga u jooga Soomaaliya ayaa ka hadlay dadka maanta loo qaaday dalka Turkiga. Öncelikle tüm Somali ve Türk halkının başı sağ olsun. ugu horeyn waxaan tacsi u dirayaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Turkiga. Dün kötü bir gün yaşadık. Biz bu saldırıyı kınıyoruz. shalay waxay maalin aad u murugo badan waan qaleeceynaa dhacdadii ama qaraxii shalay dhacay. Yaklaşık 80 Somali kardeşimizin yanında 2 tane de Türk kardeşimizi kaybettik. waxaan qaraxii ama weerarkii shalay ku weynay 80 qof oo walaalaheen Soomaaliyeed iyo laba muwaadiniinteena ah. Türkiye her zaman olduğu gibi zor zamanlarda Somalili kardeşlerinin yanında yer almaktadır. sidii horeyba ay u ahaan jirtay dowladda Turkiga waxay garab taagan tahay walaalahooda Soomaaliyeed maalmaha adag. Dün öncelikle tüm kurtarma faaliyetlerini buradaki Somali yetkililerle birlikte koordine ettik. shalay waxaan kala shaqeynay arrimaha gurmadka mas'uuliyiinta ama hay'adaha ku shaqada leh ee Soomaaliyeed. dhinaca kale wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa ka hadlay qaraxii shalay ka dhacay isgooska Ex Control Afgooye magaalada Muqdisho isagoona ka tacsiyay dadkii halkaas ku geeriyooday waxaana ku dhaawacmay walla ugu bariyay inuu caafimaad degdeg ah siiyo. wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dadka maanta dalka Turkiga loo qaaday ay ku jiraan laba muwaadin oo u dhashay dalka Turkiga kuwaas oo ka
mid noqday dadkii ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye Muqdisho. waxaan rabaa halkan inuu ugu tacsiiyey dadkii ku waxyeeloobay qarax ka dhacay Ex Control shalay. waxaan leeyahay dadkaas way shahiideen, ilaahay jannad firdaws ha ka waraabsho, samir iimaan ilaah ka siiyo qoysaskooda iyo ehladii ummadda Soomaaliyeed. waxay ahaayeen dad shacab ah oo soo shaqo tagay nolol maalmeedkooda. sidoo kale waxaa ku jiray arday dhalinyaro ah oo wadanka wax u baranayay. waxa uu codka wasiirka amniga u dambeeyay warkii wariyaheena Xuseen Washington. taliyaha booliiska ee Puntland ayaa waxa uu ku dhaawacmay weerar dad shacab ah ay ku qaadeen gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland. warkan waxa eegay wariyaheena Axmed Xuseen Cabdo. warar dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan ilaalada gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo lagu soo waramayo in ay dad shacab ah ay ku risaaseeyeen deegaano ka tirsan gobolka Sanaag kadib markii halkaasi gudoomiyaha baarlamaanka ee Puntland uu tagay. warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in rasaas ay markaasi ilaalada gaarka ah ee gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland ay ku fureen dad ka careysan socdaalka gudoomiyuhu uu ku tagay deegaano dowlad waa gobolka Sanaag in ay markaasi rasaaseeyeen isla markaana khasaaro dhaawac u badan halkaasi uu ka dhashay. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya ilaa iyo hadda kuwaasi oo sheegaya in ilaalada gaarka ah gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo markaasi dad shacab ah ay qaylo iyo sawaxan ay kala hortageen gudoomiyaha ay markaasi rasaas ay ku fureen isla markaana ay halkaasi dhaawacyo ay ka soo gaareen dadkii shacabka ahaa ee ka careysnaa safarka ama socdaalka gudoomiyaha golaha wakiilada ee Puntland uu ku tagay halkaasi. ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland uu ka soo saaray arinta ku aadan rasaastaas khasaaraha geysatay ee ilaaladiisu ay fureen. hase yeeshee waxaa socdaalkiisu ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay uu kulamo siyaasadeed oo joogto ah halkaasi uu ka waday gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Dhoobadareed oo markaasi ku aadanayd xilka qaadistiisa iyo waliba isagoo odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale siyaasiyiinta gobolka Sanaag kala hadlayay sidii markaasi looga tashan lahaa aayaha Puntland. waraysiyo uu bixiyay warbaahinta siyana uu kala hadlay in markaasi ay muhiim tahay in xaaladda Puntland ay ku socoto wax laga qabto. tan iyo wixii xilligaas ka dambeeyana waxaa jiray xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay xilka qaadista gudoomiyaha gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Dhoobadareed. arintan ayaa waxaa loo maleynayaa inay salka ku hayso xilka qaadistii hore loogu sameeyay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Puntland Dhoobadareed iyo sidoo kale socdaalka uu halkaasi ku tagay gudoomiyaha haatan xilka gudoomiyaha baarlamaanka Puntland haya. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Laftagareen ayaa tababar u soo xiray ciidamo booliis ah oo loogu talagalay inay ka howlgalaan gobolka Shabeellaha Hoose. Laftagareen ayaa tababarkan ugu soo xiray ciidamada booliiska gobolka Shabeellaha Hoose waxaana uu sheegay in loo baahan yahay loona tababaray ciidankan inay ka howlgalaan deegaanada Shabeellaha Hoose. waxa uu sheegay Shabeellaha Hoose in dadku dhibaato badan ay ku qabaan oo ay qayb ka tahay dadka in wadada loo galo rasaas lagu furo gaadiidka ay saaran yihiin mararka qaarna dhac loo geysto taasina looga baahan yahay ciidamada uu tababarka u soo gabagabeeyay ee booliiska ah maanta inay ka howlgalaan. oo lagu daro 2 bilood oo kale adinkoo lagu xisaabtamayo deegaanada u socotaan iyo daruufaha ka jira lagu daro 2 bilood oo kale oo tababar ah oo u shaqeynayo kumaandoostimo iyo adeeg ciidamada oo dhan la dhameystiro. marka taas aan nasiib wanaag ah waana waxaad nasiib u hesheen walaaliin. waxaan rabnaa marka waa ogtihiin deegaanadii aad ka timaadeen iyo dalkii aad ka timaadeen oo la idiin soo tababaray iyo waxa la idinka sugaaya. waxaa la idinka sugayaa dadkii igu horreeyay inta joogay oo dhan wixii ay ka hadlaayeen oo ay sheegayeen oo ah in wixii la idiin soo tababaray iyo tababarkii la soo siiyey inaad deegaankiinni iyo dadkiinni iyo shacabkiinni aad kula noqotaan aadna si siman oo dadka dhan ay u wada leeyihiin aad u ilaalisaan xuquuqda shacabkaas iyo deegaanadaas aad degantihiin aadna uga ilaalisaan
cadowga iyo masiibadan ku habsatay deegaanada Soomaaliyeed oo dhan gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose ciidankii dufcaddii ugu horreysay baa tihiin waa aaminsanahay